لله وثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم maantay oo ah maalin jimco ah taariikhduna ay tahay 26 bisha November 2021 waxaanu ku sugannahay magaalada caasimadda ganacsiga ee Puntland ee Boosaaso waxaanu isugu nimi oo uu shirkayagu daaranaa waxa ay ahayd adkaynta amniga caasimadda ganacsiga ee Boosaaso iyo inaanu bulshada la wadaagno markaanu shirkayagii dhamaysanay qodobadii shirka ka soo baxay iyo xaaladda amni ee wadanka si guud iyo tan gaar ahaaneed ee magaalada Boosaaso marka ugu horeysa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala waa mahad iskale wadanku waa amni nabadgelyo lagu seexdaa lagu soo toosaa magaalada Boosaasana amni buuxa oo dhameystiran baa ka jira wax khalkhal amni xuma ah kama jiraan dhibaato kale oo laga baqayo oo in xaaladdu faraha ka baxdaana kama jiraan wax walba oo under control way waxaan rabaa inaan dhowr qodob taabto jananka wax badan buu ka hadlay waxaan rabaa inaan dhowr qodob oo muhiim ah dul istaago marka koowaad annagu waxaanu u nimi magaalada Boosaaso marka laga yimaado shaqooyinka iyaga routiniga ah oo amniga iyo controlkooda iyo dabagalkooda iyo ukuurgelidooda marka laga yimaado oo joogto noo ahayd inaanu magaalooyinka waaweyn ay Boosaaso ka mid tahay aanu markaanu muddo joognaba aanu nimaano aniga iyo jananadu waxaanu u nimi inaanu u kala wareejino xilka agaasimihii hore ee hay'adda Puntland Security Force ama BSF ninka la yiraahdo Maxamuud Cismaan Cabdullaahi iyo agaasimaha cusub ee hay'adda Puntland Security Force BSF sareeyo guuto Amiin Xaaji Khayr arintaas aanu u nimi magaalada inaanu xilka u kala wareejino hadaanu nimi magaalada oo aanu hawsha u nimi waxaanu joognaa 2 maalmood hadeer wali hawshaasi ma aysan dhicin waxa jirtay sidii uu jananku xusay digreeto soo baxday 24 bishan 2 maalin ka hor oo ay digreetada xilka looga qaaday Maxamuud looguna magacaabay Amiin oo aanu u nimi inaanu u kala wareejino dib marka taariikhda loogu noqdo Puntland waxa ay jirtaa dhowr iyo 20 sano nidaam dawladnimo oo dhameystiran oo qaangaar ah baa ka jira qof khaldamay iyo 2 qof oo khaldantay iyo 3 qof oo khaldamayna waxba ma yeeli karaan mana khalkhal gelin karaan mana khaldi karaan ummadda tani waa ummad go'aan qaadatay masiirkooda ka tashatay dawladnimadooda dhameystiratay cid walba oo dawladnimada iyo nidaamka ka hor imanayana xukuumad iyo shacab meel baa looga soo wada jeedaa xukuumaddii ka horeysay ee uu mudane Cabdiweli Cali Gaas oo madaxweynaha ka ahaa baa loo magacaabay sareeyo guuto Maxamuud Cismaan Cabdullaahi in uu u noqdo BSF inuu taliye u noqdo waxa ka horeeyay oo xilka markaa laga wareejiyay ninka la yiraahdo Asad Cismaan oo isagana uu u magacaabay madaxweynihii ka horeeyay Cabdiweli ee ahaa madaxweyne Maxamed Cabdiraxmaan Faroole marka waxa aragtaa waxay ku imaanaysay jaranjaro mar walba xukuumadda markaa joogta baxilka ama ka qaadaysay ama magacaabaysay ama daynaysay wadanka waxa ka jira ciidamo 6 ah 4 waxa weeye ciidanka daraawiishta Puntland ciidanka booliska Puntland ciidanka asluubta iyo ciidanka nabad sugidda Puntland ciidamadaasi waxa si dhameystiran dhaqaalahooda iyo budgetkooda iyo tababaradooda gacanta ugu haysa oo bixisa dawladda Puntland waxa jirta 2 ciidan oo dawladda Puntland laga kabo oo kala ah ciidanka BSF-ta oo ay dawladda Mareykanku nagu caawiso budgetka iyo dhaqaalaha ku baxa iyo tababarada ku baxa ciidanka labaadna waa ciidanka BNBF oo iyagana ay naga caawiyaan dawladda Imaaraadku ay naga caawiyaan kabistooda iyo dhaqaalaha iyo baahida ay ciidankaasi u baahan yihiin tababaradooda dhammaantood marka mid bay ka siman yihiin waxay ka siman yihiin waxa magacaaba xilka ka qaada madaxweynaha dawladda Puntland dhammaantood xukuumaddan hadeer jirta ee uu madaxweynaha ka yahay Saciid Cabdullaahi Deni waxaan rabaa inaan dadka la rabo in la marin habaabiyo inaan saxaan rabaa xukuumaddani waxa ay xilkii ka qaaday taliyihii hore ee ciidamada daraawiishta waxaa loo magacaabay
janan yaasiin oo haddeer dhinac fadhiya. waxaa sidoo kale xilkii laga qaaday taliyihii hore ee ciidanka booliska waxaa loo magacaabay jenaraal cabdiyare. waxaa mar labaad laga qaaday jenaraal cabdiyare waxaa loo magacaabay jenaraal maxaa cali xaashi. ciidanka nabad sugidda sidaas si la mida waxaa laga qaaday taliyihii hore ninkii la oran jiray cabdulaahi uulo waxaa loo magacaabay taliyaha haddeer haysta jayte. ciidanka BNBF waxaa laga qaaday agaasimihii hore ee haystay ciidanka BNBF cabdiraxmaan maxamuud xaaji xasan waxaa loo magacaabay agaasimaha cusub ee haddeer haysta cabdirabbi cabdisamed maxamed. ciidanka BSFna waxaa laga qaaday xilkii taliyihii hore ciidanka haysan jiray ama agaasimihii hore haysan jiray maxamuud cismaan cabdulaahi waxaa loo magacaabay agaasimaha cusub iyo taliyaha cusub ee BSFta sareeyo guuto amiin xaaji khayr. marka waxaan rabaa halkaa inay silsiladda inay idinku isku xirataan dhammaystiran inay xilka qaadisteeda iyo magacaabisteeda inay tahay xaq dastuuri ah oo uu leeyahay madaxweynaha markaa talada dowladda Puntland gacanta ku haya. wadadii saxnayd bay soo martay digreetatani waxa ay soo martay nidaamkii dastuuriga ahaa waxa ay ku timi magacaabidii saxnayd. waxaan rabnaa marka bulshada inaan been loo sheegin, bulshada inaan la qarin daarin, ummadda inaan wax khaldan loo sheegin. waa sidaa looga qaaday jenaraal ninka la yiraahdo sareeyo guuto maxamuud cismaan cabdulaahi looguna magacaabay sareeyo guuto amiin xaaji khayr. waxaanu rabnaa sidaa ay digreetada u qorantahay inay u dhaqan gasho. waxaanuna u joogno boosto waa intaa. ma rabno amni xumo inay ka timaado, ma rabno khilaaf inay ka timaado, ma rabno cadowgu inuu ka faa'iidaysto. dadkan iyo dalkan waxa ay leeyihiin cadow fara badan oo isu bahaystay. waxaanu rabnaa inay xabadeenna iyo gacanteennu ay meel u wada jeedo oo aynu argagixisada sidii aynu dhaqanka u lahayn aynu kula wada diriro. waxaan rabaa inaan taabto ciidanka BSFta. ciidamada BSFtu sida uu tilmaamay jenaraal yaasiin waxa ay ka mid ahaayeen ciidamadii lafdhabarta u ahaa amniga Puntland, ciidamadii lafdhabarta u ahaa dowladnimada Puntland, ciidamadii lafdhabarta u ahaa difaaca dalka. aad baan ugu ammaanaynaa ciidamadaas saraakiil iyo saraakiil xigeen waxa ay soo qabteen shaqo lama hadiyo, waxa ay mudan yihiin qadarin, waxa ay mudan yihiin abaalmarin. laakiin waxaan rabnaa marka uu isbedel imanayo maxaa keena ciidan shaqaynayay marka sarkaalkii ugu sareeyay xilka laga qaado sarkaal kale loo magacaabo iimaan yimi loo arko in la saxo oo la rabo sarkaalkaasi hadduu saxi kari waaye sarkaal kale in la keeno oo markaa daldalooladii jiray uu buuxiyo. ciidamada BSFta daldaloolada jiray oo aan rabno hadduu ilaahaydmo agaasimaha cusub iyo taliyaha cusub oo loo magacaabay inuu saxo waxa ka mid ahaa ciidamadu waxa ay soo galeen dagaalo fara badan, waxa ay yeesheen mudnaan fara badan, waxa ay yeesheen oo ay xaq u yeesheen dallacsiimo, waxa ay xaq u yeesheen biladsiin, waxa ay xaq u yeesheen in la xuso. laakiin waxyaabaha daldaloolada ah oo jiray waxa ka mid ahaa ciidamada inay waayadii dambe oo dhan inaysan intaa helin, inay ciidamadii dallacsiin helin, inaysan darajooyinkay mudnaayeen aysan helin, in uu dibadhac u jiray, in moralkii ciidanku markaa uu hoos u dhacay. maxaa yeelay ciidamadu inay marka ay howlgalla sameeyaan operationna galaan ay ku guulaystaan inay helaan dallacsiin iyo darajasiin iyo mahadcelin iyo biladgeesi waxa ay ka mid tahay waxyaabaha moralka ciidanka kor u qaada. ciidamadii kale oo la midka ahay oo shanta ahaa markay intaa wada helaan ciidankii BSFtuna ay intaa waayaan oo khaladaad kale uu dhaco oo mararka qaarkood tacaddi iyada xeradii dhexdeedii ay ka dhacdo oo ay dhacdo qof aan mudnayn in la eriyo oo ay timaado awood maquunsi iyo waxa la yiraahdo ku takrifal ay timaado, qof aan mudnayn in la xiro waxaasoo dhan ay timaado waxaa imanaysa moralkii ciidanka inuu hoos u dhaco. waxaa lagu saxay oo go'aanku uu ku soo baxay agaasimo cusub iyo taliye cusub in loo magacaabo isagu oo hoos u fiiriyo wixii khaldanaa uu saxo. waxaan markaa rabaa inaan u sheego dhammaan ciidamada BSFta waxaad ogaataan agaasimaha cusub oo laydiin magacaabay wax badan oo khaldanaa buu sixi doonaa hadduu ilaahaydmo. waa nin aqoon u leh, hore loo soo tijaabiyey, shaqooyinka noocanna hore uga soo shaqeeyay aadna ugu wanaagsan. waxaan rajaynaynaa ilaahay idankii wanaaggii laydinka bartay ee ciidamada saraakiisha iyo saraakiil xigeenada iyo dableyda BSFta iyo qorshihii aad ku taagnaydeen inuu saaxba iska bedelin. waxaan rabnaa inaad noqotaan amar qaatayaal oo aad amarka ka qaadataan saacaddaa wixii ka dambeeya taliyaha cusub oo laydiin magacaabay iyo agaasimaha cusub oo laydiin magacaabay.
waxaa kaloo la idin farayaa inta ku jirta magaalada boosaaso gudaheeda in ay xerada ama xarunta ciidanka BSF ee magaalada boosaaso gudaheeda ah in ay joogaan oo aysan ka soo bixin ayna halkaa ku nagaadaan inta xaaladani ay dhammaanayso taliyaha cusub intuu xilka la wareegayo inta uu la kulmayo ciidanka inay halkaa ku jiraan oo aysan ka soo bixin arrintaana waa faraynaa waxaan rabnaa si la mida gaadiidka iyo hubka ay gacanta ku hayaanna saasoo kale inuu xerada uu ku ekaado oo uusan xerada dibadda uga soo bixin waxa kale oo dhan waa la saxayaa wax khaldami doonaana ma jiro waddankuna wuxuu leeyahay nidaam iyo dastuur kala haga oo aan la isku khaldami karin xilkuna waa meerto maanta shalay maxamuud waxa uu ahaa taliyaha ciidanka BSF-ta berrito waxaa laga yaabaa xil ka sarreeya inuu madaxweynuhu u magacaabo waxaa laga yaabaa golaha xukuumadda aanu hadeer ku jirro inuu soo galo waxaa laga yaabaa meelo kale oo wanaagsan inuu yimaado waxaanu maxamuudna kula talinaynaa inaysan dhallinyarnimo qaadin inuu si sharaf leh oo wanaagsan oo gobonnimo leh sidii xilka loogu magacaabay uu xilka u wareejiyo ogaadana inay meerto tahay annaga waxaanu marka u taagannahay oo aanu u dhaarannay dadkan iyo dalkan inaanu difaacno cid kasta oo damacday inay amnigeeda khalkhal gelisana inaanan ka aqbalin oo aanan ka ogolaan shacab weynaha reer Puntland shacabka reer Boosaaso waxaa ku seexataan oo ku soo toostaan nabadii iyo wanaaggii aad haysateen ilaahay idinkiina waxba iska bedeli doonin hawsha tanyarta ahna iyo waxaan yaroo taagtaaganna waa waxaanu magaalada u joogno waana xallinaynaa waana ay dhammaanaysaa dhammaan ciidamada jooga gobolka bari gaar ahaan magaalada Boosaaso iyagana waxaanu faraynaa in ay waajibaadkooda gutaan inay amniga si buuxda uga shaqeeyaan inay shacabka u dhimriyaan in ay mar walba ay dawladnimadii iyo nidaamkii iyo systemkii dawladnimo inay ilaaliyaan bahda meediyahana waxaanu iyagana ka codsanaynaa inay waxa wanaagsan tabiyaan inay waxa wanaagsan ka shaqeeyaan inaysan dadka khalkhal gelin inaysan macluumaad khaldan aysan sheer garayn mid baad arkaysaa wax khaldan soo dhigaya markiiba waxaad arkaysaa tobanaan kula boobaya sheerka oo kuwa badan oo aan arag markiiba gaarsiinaya marka waxaa la rabaa in ay meediyuhu inuu waxa wanaagsan ka shaqeeyo waa uga mahad celinaya inta hadda ay hor joogta iyo in badan oo aan aqaano waa inta waxa wanaagsan ka shaqeysa waa inta waxa khaldan saxda waxaanu rabnaa taa oo si laba jibaarteen inta khaladka ka shaqeynaysana in qori faraaryada ku qabataan ummadana la tuso la yiraahdo waxa ay ka shaqeynayaan ma aha wax saxan ma aha wax baalkiya dalku waxa uu u diyaar garoobay doorasho xubnihii aqalka hoose ee federaalka inay ka dhacaan hadduu ilaahaydmo magaalooyinkii Puntland loo asleeyay si nabadgelyo leh bay uga dhici doonaan hadduu ilaahaydmo hawsheedana meel fiican bay maraysaa ummadana waxaanu ugu bishaaraynaynaa nabadgelyo iyo wanaag dawladnimaduna iyada asal ah cid kasta oo khilaaftana waxay noqonaysaa cid iyagu markaa meesha ka baxda aad baa u mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.